magaalada Hamburg waxaa lagu qabtay koob kubadda cagta ah oo lagu soo dhaweynayo bisha barakeysan ee Ramadaan. Koobkan oo laga soo qaban qaabiyay xafiiska Jaaliyadda Soomaalida ee Hamburg ayaa ahaa kii ugu horeeyay ee markaasi noociisa oo kale lagu qabto magaalada Hamburg. ujeedada koobkan aan ugu magac darnay isdhexgalka dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Hamburg ahna sidoo kale soo dhaweynta bisha barakeysan ee Ramadaan. waxaa targetka uu yahay sidii dhalinyaradu ay isugu soo dhawaan lahaayeen oo isdhexgal iyagu dhexdooda ay u sameyn lahaayeen sidoo kalena bisha barakeysan ee Ramadaan oo ugu soo wajahan aan ugu soo dhawaan lahayn. waa markii ugu horeysay koob noocan ah dhalinyarada loo soo abaabulo. dhalinyaro far badan oo Soomaaliyeed baa ku nool magaalada Hamburg. marka sidoo kale dhinac wuxuu ka yahay koobkan in dhalinyarada lagu baraarujiyo sportska iyo horumarka lagana wacyigeliyo wadooyinka xun sida isticmaalista muqaadaraadka iyo waxyaabaha la mid ah sida alcoholada. marka sidaad ogtahay waxaan nimid qurbo wadankan waxaa ku nool qowmiyado fara badan. qowmiyad kasta way dagaalamaysaa waxay ku dagaalamaysaa sidii dhalinyarada mustaqbal wanaagsan ay ugu sameyn lahayd. annaga dhalinyarada Soomaaliyeed haddaan nimid qurbaha waxaan dilay kala qaybsanaan dhexdeena ah, isfaham la'aan, isku imaansho la'aan. dadkii waxa way xindaab ay ku gali jiraan. marka xindaabkaas aan rabnaa in dhalinyarada aan ka soo furfurno oo aan iyaga isu keenno, iyagu tashtaan, horumarkooda mustaqbalkooda ay ka shaqeeyaan. waxa way keeni guuleysto la garab istaago si mustaqbalka meel sare wadankan aan uga gaarno. ujeedada guud waa taas. qaar ka mid ah dhalinyaradii qaybta ka ahayd koobkan ayaa iyaguna dhankooda aad u soo dhaweeyay iyadoo markaasi ay wajiyadooda ka muuqatay xamaasad iyo xiisaha ay u hayaan koobkan. magacaygu waa Cabdifataax Xasan Cilmi waxaan nahay kabtanka kooxda Somali Hamburg. marka waxa weeyaan kooxdan la ciyaaraynana waa koox kala saaxiibadaya ku ciyaaraysa magaca Soomaali. maanta waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan guuleysano. muhiimadan iskula ciyaaraynaa ama koobkan loo qabtay ee Somali Community Hamburg oo qabtay waxa weeyaan inay dhalinyarta saaxiibadaya dhalinyarta Hamburg ku nool dhalinyarta Soomaalida inay isdhex galaan oo isfahmaan oo isbartaan. marka waxyaabo badan baa fududaanaya dhalinyartii isbaranaysa dhalinyartii isdhexgelaysa dhalinyartii jacayl dhexdeeda iyo xafiiltan iyo ficil oo imanayo. marka sababtaas nagu kaliftay koobkan inaan ciyaarno. muhiimadda waxa weeye guul baan ku soo tagnay iyaguna guul bay ku soo tageen. waxa weeye Soomaalida waxay ku maamahada gar laba nin kamada qosliso. waxa weeye insha Allah ciyaarta waxaan ku haweenaa sida ay u socoto in anagu guusha ay nagu dambeyn doonto insha Allah. sidaan ka wada warqabno sportsku waa waxa ugu dhow ee isdhexgalka lagu sameyn karo. marka taas kaliftay in aan barnaamijkan ama tartankan kubadda cagta ah aan u qabano dhalinyaradan oo ay ku tartamaan xirfadooda kubadda cagta ah. koobkan oo ay ka qayb galeen 4 kooxood oo ka kala socda magaalada Hamburg ayaa ku soo dhamaaday si wanaagsan. isku soo wada duubo Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Hamburg ayaa dhawaan laga filayaa inay qabato barnaamijyo kale oo looga gol leeyahay sidii markaasi la isugu soo dhaweyn lahaa shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Hamburg. horta koobkan in la qabto waa muhiim sababtoo ah waxa weeyaan sportigu waxa weeyaan waa qayb kamid ah nolosheeda. sportigu waa qayb kamid ah isdhexgalka bulshada dhalinyarada. dhalinyarada Soomaaliyeed meesha joogtaana Hamburgna kulli waa magaalo yara xidhan siday aniga ila tahay. marka koobkani wuxuu u wanaagsan yahay in la isfurfuro bulshadu isdhex gasho dhalinyaradu isdhex gasho in change la sameeyo. horta dhalinyarada waxyaabo badan baa kulmin kara. waxa kulmin kara horta sportigu waa shay ugu koowaad ee dhalinyarada kulmin kara weyn. waxyaabo kale oo dhalinyarada kulmin kara anigu jiraan ama haday noqoto ama Jaaliyadda Soomaaliyeed ama haday noqoto urur dhalinyaro oo maanta magaalada aan ka dhisnay. Jaaliyaddu waa gaar laakiin urur dhalinyaro waxa loo baahan dhalinyaro khaas ah oo qalbigooda iyo qulubtoodu saafi tahay oo aan waxba ku jirin oo isku duuban in iyagana la helo oo ururkan la sameeyo ayaan jeclaan lahaa.